waxaan isugu nimi deeq ama tabarucaad ay bixinayso shirkadda Microcost anoo ku hadlaya magaca shirkadda Microcost Bashiir Ibrahim Xaaj Faarax waxaan ugu deeqaynaa dadkii ka soo noqday maxaa la yiraahdaa dagaalkii Yemen ka soo barakacay ama ka soo maxaa la haajiray waxaan ugu deeqaynaa dharkan oo aad u jeedaan oo ah dhar aad u maartay quality badan mana aha dharka Soomaalida ee oran jiray waa ama waa hoodey ama wixii la mid ah dhar qaali ah weeye oo kraatiisan waxay ahaayeen hal container oo maxaa la yiraahdaa dhar ah waxaan haddii alla idin ka dhigo waxaan rabnaa wixii kale oo deeq ahna inaanu ka qayb qaadano shirkadaha kale oo nala midkana waxaanu leenahay wari wax baxsada وما تنفقوا من شيء تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا waxaad baxsataan waad helaysaan mar labaad iyo mar saddexaad ba waxaan leeyahay madaxdu waa mahadsan tahay annaguna waxa weeye hadaan nahay shirkadda Microcost waxaanu ballan qaadaynaa inaanu ka qayb qaadan doono tabarucaadka dadkan walaalaheena oo soo barakacay dagaaladu soo barakaciyeen mar rabo inaad halka ku dheeraado waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ba madaxda soo dhawaada annaguna waa idin heeganahay ka shirkadaha kalena waxaan leeyahay walaalaheena ka qayb qaata khayr weeye ajar weeye falillahi alhamdu waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa shirkadda Microcost ee dharkan qaaliga ah kee noo keentay oo nagu wareejisanta dawladda iyo guddigaba ku wareejisay waxaan isleenahay hawshaasi waa hawl aad iyo aad u qiimo badan waana hawl ku dayasho mudan aan isleeyahay waxa weeye in dadkii kalena way ku dayanayaan sadaqadana wax markan oo kale waa la muujiyaa si marka waxa weeye la isugu daydo arrinkaasina aad baan ugu faraxsanahay waan u ducaynaynaa xoolahooda Allah u barakeeyo ila waxa weeye balaayada Allah ka ilaaliyo shirkadaha kale saasan rajaynaynaa inay hawsha ka qayb qaataan guud ahaanna waxaan rajaynaynaa Soomaali oo dhan inay barnaamijkan ka qayb qaataan hadday koonfur joogaan iyo hadday waqooyi joogaan iyo hadday joogaan waxa weeye Puntland joogaanba inay hawshan waxa weeye waa hawl qaran weeyaan oo ummad oo dhan ka dhaxaysa weeyaan aan cid gaar ku ahayn waxaan rajaynaynaa waxa weeye inay hawsha laga wada qayb qaadan doono Puntland waxa weeye ama shacabkeeda ama dawladdeeda intii ay qaadi kareen waa qaadeen waxaan rajaynaynaa dadka shacabka reer koonfureed oo aan uga baranay inay hawlahan oo kale nagala qayb qaataan inay iyagana nagala qayb qaadan doonaan saasaan rajayn doonaa waxa weeye hawshaas sidii duufaantii nogala qayb qaateen tanna waa nagala qayb qaadan doonaan insha Allah iyagana saasaan rajayn doonaa waxaan isleeyahay shirkadda mar labaad waa u ducaynaynaa dharkaasi waa dhar noocyo badan leh oo aan waxa weeye dharkii ugu qaalisanaa dadka ugu qaalisan ay qaadan jireen weeyaan marka waxaan isleeyahay dadka waxa weeye say iyagu u garteen waxooda qaaliga ahaa bay bixiyeen ilaahay wax qaaliyana waa ugu bedelayaa intaas ayaan kaga baxayaa inta waa maadsantiin waxaan shirkadda Microcost ka gudoonay dhar ay ugu tala gashay qaxootiga ka yimi Yemen dharkaas oo ah dhar aad u qaaliya ku haboon in la siiyo waana dharka ugu qaalisan oo laga gato carwooyinka waa ku mahadsan yihiin waana ka gudoonay jambarahan anaguna waa hawshaas waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad bayna u fiican tahay ganacsatada Soomaaliyeed kuwa Puntland iyo kuwa Soomaaliya koonfur iyo kuwa meel kasta jooga waxaan ugu baaqaynaa inay sidaas oo kale uga qayb qaataan walaalahood oo soo qaxay oo qaxootiga oo xaalkoodu aad u hooseeyo dhinaca dhaqaalaha dhinaca dharka dhinaca muxuu ahay daawada dhinaca amba bixinta waxyaalo badan aad bay ugu haboon tahay dalka sadaqadaas laga qayb qaato ilaahayna way idinku bedelaya badal khayr shirkadda bixisana waxaan leenahay ilaahay ha ugu bedelo badal khayr aakhiriya adduunka ma bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta halkan aan ka soo qayb galo munaasabadan dharka ay bixisay shirkadda Microcost ay ugu deeqday dadka walaalahooda oo ka yimi ama ka soo qaxay dalka Yemen oo ay hadda dagaaladu ka socdaan dharka kan hadda ka muuqanaya dhankan dhinacayga oo ah dhar aad iyo aad u fiican dhar cusub dhar ah nooc wanaagsan oo runtii waxtar weyn u taraya dadka soo qaxay inay shirkadda Microcost bixiso waan ku faraxsanahay waana wax wanaagsan wuxuuna waxtar weyn u yeelan doonaa dadkaas baahida qaba waxaan u arkaa waxa weeye
deeq nooc cusub ah oo hore aan loo samayn jirin in dhar cusub oo sidiisii ah oo jadiida in inta ay shirkadi bixiso ugu deeqdo dadka walaalahooda waa noocii ugu horreeyey oo kulley intii muddo ahayd aan arko aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa shirkadda maakhir coast aad baan uga mahad celinaynaa shirkadda maakhir coast waxaanuna rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo iyana inay joogtayso oo intaa ka badan ay kaga qayb qaadato sidii wax loola qaban lahaa dadka dhibaataysan oo walaalaheen ah shirkadaha kale ee waddanka ku dhaqan iyo ummadda kalena waxaanu ka rajaynaynaa inay ku dayasho wanaagsan u noqoto hadduu ilaahay idmo qofka bini'aadamka ah waxa uu la baxayo oo uu sadaqa ula baxayo oo uu allah subxaana wa tacaala hortiisa ula baxayo inay noqdaan waxa ugu wanaagsan waxa ay ka mid tahay waxyaabaha asaasiyaadka ah oo ay diinteennu ina amrayso kambaniga marka waxaanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala wax ka khayr badan ha idinku bedelo meeshaa ka soo saarteenna wax ka wanaagsan ha idinku bedelo waxaanu ka marakaceennaa in wax la bixiyo wixii ugu wanaagsanaa iyo xilligii ku habboonaa konteenar dhar ah oo dhar kwaalitageedu aad u sarreeyo oo yurubiyaan ah oo dharkii dadku ay baahida ugu badan u qabeen ka kooban haddii la qiimeeyana qiimaha ugu qaalisan ee dhar la siisto maanta jooga inay ugu deeqaan oo kaga qayb qaataan deeqda walaalahood dadkii yeman ka yimi ee soomaalida ahaa ee dhibaataysnaa ee santarka boosaaso ku xaraysan inay kaga qayb qaataan aad baan uga mahad celinaynaa waxaanu rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo in deeqahaasi ay joogtoobi doonaan ka maamul ahaan mahadcelintaa waxaa noo dheer shirkadaha iyo ganacsatada u dhagan nugul maamulka oo marka aanu ku baaqno in dhibaatooyinka jira wax lagala qayb qaato noo dhagan nugul iyo kuwa aan noo dhagan nuglayn oo dhagaha naga furaysta waxay ogaanayaan inaysan meel noo wada joogi doonin xisaabtan baa iman doona wixii waddanka u baahan hadduu horumar yahay iyo hadday dhibaato dhacday in laga wada qayb qaato shirkadaha ka qayb qaata waxay yeelan doonaan tixgelin gaara waxay yeelan doonaan soo dhowooyin gaara shirkadaha dhagaha ka furaysto ka qayb qaadan waayana il gaara lagu eegi doonaa xisaabtan gaar ay yeelan doonaan mar labaad iyo mar saddexaad aad baan uga mahad celinayaa dhammaan intii hawshatan isku xilqaantay meediyaha iyo ciidanka amniga sugayana aad baan uga mahad celinaynaa